بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo wadanka deriskeena noogu yimid dhammaantiin waan salaamayaa qof walba waxaan ku salaamayaa munaasabada uu ku fadhiyo iyo sharaftiisii aad iyo aad idin salaama maadaama uu waqtiga gaaban yahay runtii maanta waa maalin weyn Ilaahay aan ugu mahadcelinaynaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hambaliyo ayaan leeyahay maanta reer Jubbaland oo guddiga doorashooyinka ugu horeeyaan iyo shacabweynaha iyo xildhibaanada iyo ciidamada deriska walaalaheena nala joogo oo doorashadan si habsamida u hogaamiyay dhammaantoodana waa u hambaliyaynayaa reer Jubbaland waxaan u rajaynayaa guul iyo sharaf iyo horumar madaxweyne Axmed Maxamed Islaamna waxaan u rajaynayaa hoggaanka in Ilaahay u fududeeyo dadkan wanaagi uu ku soo hogaamiyay iyo sharaftii midtii ka badan inuu Ilaahay ku hagaajiyo odaynimadii Soomaaliya odaynimada uu ka ahaana dameeshiisa uu ka wado taas waa ducayga tahay iyo hambaliyo mudan ali marwey salaan kadib meeshaan waqti badan lama hayaa laakiin aniga maalmahan ma hadlin inkastoo iska hadal yaraa waxa ugu fiicnaan lahayd in xoogaa waqti la isiyo laakiin maadaama waqtiyo kale la heli doono meelo kale aan ka hadli doono ma hadal badnaan sideedo marka waxaan leeyahay xaaladda lagu jiro qof ay ka qarsantaa ma jirto Jubbaland dhibaatada dawladda federaalka ay marisay inuu shabaabna jidadka ka xirto dawladda federaalka Soomaaliyeed ay hawada ka xirto waa arrin nasiib darro marka waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed dadka inta joogo ama madaxda ka ama degan dadkii wadaniyada iyo dadaalka geliyay Soomaaliya inay Soomaalinimadeeda ku soo noqoto Soomaaliya sharafteedii awoodeed inay hesho dadkii ka dadaalay ka shaqeeyay kamid yihiin marka sharaftii ay soo celiyeen iyo dadaalkii ay wadeen oo ku faraxsanaayeen in ayaga lagula dagaalamo waa nasiib darro dawladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinta ayada wixii dhacay waa dhaceen raaligelin ha ka bixiso hana ka noqoto yeenan gobol kalena loo isticmaalin runtii doorashada inta ka dhacday bani aadam is doorto si buu noqonaa laakiin wuxuu la tusay guddiga ninka madaxda u ahaa xeerarkii iyo dimuqraadiyadii iyo meelihii uu mariyay runtii wax aad iyo aad u fiican waay marka awal waa ku qanacsanaa aniga haddana waa ku sii qancay runtii markii uu sidoo u maray in ay mariyeen barlamaankooda soo mariyeen golahooda wasiirada mariyeen madaxweynahooda dekreeto ka soo saaray haddii taas waa wixii sharciga siinayay waaye mar haddii taas ay mareen wixii laga sheego waa gardar walaalahay doorashada ama wax ka rabay ama rajo ka lahaa ana ka qayb qaadanin ani waxaas leeyahay maalintii hore haday isdiiwaan gelin lahaayeen way tartibi lahaayeen ama waa heli lahaayeen ama waa laga heli lahaa ayagaa yeeli waaye saas darteed ayagaa rabeen in wax loo xoogo sida ii muuqanayso ayagaan process rabin in wax loo xoogay rabeen marka ani waxa is leeyahay waxa la xoogay ma jiraan waa la isdoortay walaalaheenana waxaan leenahay heshiis qaata ka qayb qaata taasaan leenahay doorashooyinka la xoogay lama mahadin madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo baydhabo markuu tagay anaga waxaan ka sugaynay in ummadda madaxdoodii habar la xoogay kursiga laakiin inuu madaxweynaha meesha ka yiri doorasho taariikhi ah ka dhacday doorasho taariikhi ah dhacday laakiin taariikh xumo waa taariikh fiican ma ahayn sababtoo dad lagu laayay meesha ayda bani aadam lagu dhameeyay in bani aadamka in la laayo wax banaan ma aha marka waxaan leenahay dadka ayagaan ha laga garaabo dadkii siyaasaddaas loo xireen hal sii daayo ummadda Soomaaliyeedna reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maamulka waqti uu leeyahay 4 sano uu leeyahay la shaqeeya wixii yaro dhabo dhacayna iska xalli ay idinku dhaxdiin halista midooda kale dawladda Soomaaliyeed waxay ku dhisan tahay qoryo isu dhiib la isu soo dhiibay madaxweyne Sheekh Shariif aniga processan kala qayb galay process uu waday processka asiga madaxweyne xasan ku yimid
waa loo samayn karay madaxweyne xasan iga raali ahaba marka ayada processka aan sameeyay waa ka soo horjeeday anigu ila doodi jiray waliba asaana kursigii ku qaatay wuxuu ahaa process u furan ninka gudaha ku jiro iyo ninka dibadda jooga madaxweyne xasan sheekh haddana wuxuu sameeyay asagana processkii oo kale madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo ku yimid waxaan leeyahay madaxweyne process adigoo gudaha ku jiro iyo kuwa dibadda joogo oo anaga aan ka mid ahay ay rabaan inay wax ku qaataan ogolow si siman in loo sameeyo laguna heshiiyo wax qoran oo hadda maanta aan marayno oo toosa nooma yaalaan saas darteed waxaan u baahanahay wax laga heshiiyey la isku qanciyey maamulada laga qanciyey baarlamaanka laga qanciyey senatarada laga qanciyey siyaasiyiinta liidka laga qanciyey oo la isla ogyahay odayaasha dhaqanka laga qanciyey walmaawdiinta laga qanciyey civil society laga qanciyey inay wax ku yimaadaan cid walba 4 sano ay tirsanaysa hataa ninkii dagaal qabay madaxweyne in 4 sano dhamaato wax lagu daro adiga baarlamaankaaga hadamcina hadaa damcada dhibaato ka imaanay dhibaatada ayada aan Soomaali oo dhan ragaadaysa marka wax Soomaali ragaad ay kuma talinayno aad kaga mahadcelina runtii madaxweyne Axmed Xamed Islaam wax allaale wuxuu ka shaqeynayay maalinta aniga runtii aan aad uga farxay markii la doortay meeshii inuu guuleystay u qaadan lahaa wuxuu yiri dawladda Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay wada hadal iyo wada shaqeyn in laga diido wax sax ma aha marka dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay heshiis ummadda Soomaaliyeed la qaadato gaar ahaan oo gobolada la qaadato doorashadana doorasho xalaal laga heshiiyay ay noqoto maalmaha anaga waa tiriyayna ayadana ha tiriso ayada waxay u dhaqmo haysaa maalmaheed inaysan dhaqaaqaynin haddaan gadaal u noqdo Septembertii hore markii ay dhax galeen aqalka sare waxay yiraahdeen 17 November ka hor ma hadlayno anaga 17 November inta laga gaarayo aniga way iga dhamaanaysay ayagana waxba ka go'ay haddana waxay yiraahdeen ilaa Axmed Madowtiisa August laga gaaro ma hadlayno madaxweyne Axmed waa ka dhamaanaysay toban waxba ka go'ay toodiya loo yimid marka waqtiga waa dhow yahay waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed si dimuqraadiyada Soomaalinimo leh islaamnimo leh inay ugu dadaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii walaalaheena oo maanta noo yimid oo dawladda dariska ka socday iyo dadaalkoodii iyo sharaftooda si ay noogu yimaadeen waan ku mahadsanyihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.